بسم الله الرحمن الرحيم. السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسو دواada daawadayaal barnaamij gaar ah oo aan diiradda ku saari doono colaadaha ka soo laabtay gobolka Mudug gaar ahaan magaalada Gaalkacyo. Barnaamijka waxaa marti inoogu ah wasiirka dastuurka iyo dib u heshiisiinta maamul goboleedka Galmudug Asmaan Maxamuud Cali Asmaan Dheere. sidoo kale waxaa barnaamijka nagala qayb qaadan doona xildhibaan ka tirsan maamul goboleedka Galmudug xildhibaan Shariif Arwaax. kusoo dhawaada barnaamijka. qodobka horeeya waxaan sii doonaa wasiirka dastuurka iyo dib u heshiisiinta maamul goboleedka Galmudug Asmaan Maxamuud Cali Asmaan Dheere. gobolka Mudug gaar ahaan magaalada Gaalkacyo waxaa asbuucida u dambeeyay aad uga socday dagaaladaas waxay sababeen khasaare isugu jirta naf iyo maal. sidoo kale waxaa ku barakacay dad fara badan, waxaa xiran goobihi ganacsiga iyo kuwa waxbarashada. sidoo kula muuqda ka mas'uul ahaan aragtidaada dagaalkaas ka socda magaalada Gaalkacyo adigoo u fiirinaynin maamulka ka tirsanta aragtida oo ka qabo ee Galmudug. bismillah waa santahay horta marka hore dagaaladaas waa dagaalo nasab darro ah oo dadka Soomaaliyeed haysta aad iyo aad uga xun. marka koowaad dadka Soomaaliyeedna waa isku mid, anaa colaadooda qolo kasta oo dhibaato loo geysto waa qoladii kale. taas horta waa taas weeye. marka hore waxaan u aragnaa dagaalo aan fiicnayn oo ujeeddo xun oo dad shaydan ka shaqeeya ayaan u aragnaa. marka aragtida markii la yiraahdo qof kasta Soomaaliya oo Soomaalinimo oo jirto inuu sanad soo dhaweyn waxa noocaas oo kala ah iska caddahay. annagana Galmudug ahaan iyo annaga shakhsi ahaan labadaba aad iyo aad aan uga xunnahay in la joojiyo ayaan aad iyo aad mataqaana u danayna. waa tahay waxaan raacsanaysa ma jiraan xildhibaan Shariif? bismillahi rahmaani rahiim. sida wasiirku uu sheegay horta gobolkan Gaalkacyo la yiraahdo dhowr iyo 20 sano oo maamul iyo dawlad la'aantu ka jiray wuxuu ahaa gobolladii asagu lagu tilmaami karo inuu ganacsiga iyo nabadgelyada iyo ballaarka magaaladu ay aad u korortay. laakiin ayaan darro muddo hadda 2 sano iyo ku dhawaad ah waxaa ku soo laalaabtay colaado. marka ugu horeysa waxaan ka tacsiyeynaynaa dhammaan dadka Soomaaliyeed ee barakacay ee kulaylkan iyo abaartan ku qaxay ee iskuulaadkii iyo noloshii ijtimaaciga ah oo ay ka xirmeen, ganacsiga ka xirmay, inta dhimatay iyo inta dhaawacmay waa ka tacsiyeynaynaa. waxaan leenahay ilaahay xal wanaagsan iyo nabad wanaagsan ilaahay ha ugu bedelo, inta dhimatayna Allah ugu naxariisto. intaas waxaan ku kabahayaa Soomaaliya dadkeedu haddaysan ayagu tashan, haddaysan qof walba dhibaatadu way taabatay ayagu aysan mataqaanaa wada hadlin, cid maanta u soo gurmanaysa oo wada hadal siinaysa ma jirto. inta hadda dagaaladaas socdeen waad arkaysaan hal mar baa dawladda dhexe iyo maamul goboleedyada qaybo ka mid ah isku taxallujo inay yimaadaan, ayadeena wax weyn kama hirgelin. marka waxaan leenahay arrintaas waana ayaan darro, waana nasiib darro, dadkuna inuu isku tashado ma dhaafayso. waa tahay waxaan ognahay Soomaaliya waxaa sanadihii u dambeeyay ama 2 sano u dambeeyay la dhihi karaa soo kordhay maamul la yiraahdo ama nidaam la yiraahdo federalismku Soomaalidu kulligood uma wada cadda fasirkiisa wax laga jeedo iyo waxa uu yahay. magaalada Gaalkacyo tusaale ahaan xarunta u ah gobolka Mudug 20 sano oo la soo dhaafay waxaa ka jiray waxaa deganaa dad kala beela ah oo ku wada ganacsanaya, ku wada noolaa. waxaa ka jiray maamullo kala duwan, welina kama aysan dhicin inay isu qabsadaan magaalada annagaa leh iyo sida hadda dhacdo kale. ma la dhihi karaa nidaamka federaalka ayaa u horseeday dagaalkan? wasiirka sida horta marka hore federaalka Soomaalida hadda waxa iyagu wax loo keenay anoo carabana sheego federaalka wax loo keenay wax iyada Soomaaliyeed ka soo ay iyagu ka fakareen horta ma dad ayaga ajnabi ah oo arrimaha Soomaaliya karinaya 20 sano u dambeeyay
oo la kaashaday dad kale oo Soomaaliya oo iyaga dadkaas u dhow ayaa horta waxaan kariyay Soomaalida marka qaarkeed intooda badan ama Soomaalida qaarkeed intooda badan ma rabin federal in kamidana waa runtii waa lagu si ayay maaragtay wateen intii diideen waa lagu anqariyay oo si oo jujuuba ayaa horta loo geliyay marka federaalka adduunyada federaalka waa jira laakiin federaalka jira adduunka waxa weeye waa federaal ku dhisan mabaadi ku dhisan oo qabyaalad ku dhisnayn marka Soomaalidu ma taqaan federaal waxa loo jeedo mana loo aqrin mana la barin ayagana ma taqaan qabaha uma dhisna sababtoo ay tahay waxa weeye Soomaalidu dad oo hal ethnic group hal jinsi ما Soomaalidu dad sida مثلا hadda si Ethiopia kana naga mid qowmiyad waa Ethiopia مثلا oromada Soomaalida asla ayaa Soomaalida waa kala diin waa diin waa oromada anaga qowmiyada oromada alla midna anaga dhow Soomaali marka waa oromo la yiri waxa si kala yeelato intaas ayaa la dad waxaan hal qowmiyada anaga marka horta marka kuwa kaas weey si kastaba ha ahaato oo hadda kullu waa Soomaalidii waa lagu anqariyo way qaatay laakiin waxa la rabaa iyada laftigeeda markaas in dib loogu noqdo oo dib loo qeexo oo laga dhigo wax federaalka la qaadanayo oo noqdo federaal ku dhisan ma taqaanaa hadii aan la deynaynin geography ku dhisan waliba waxaan aaminsanahay federaalka Soomaaliya in loo codeeyo waxa weeye dadka Soomaaliyeed cod markii hore 60kii baa codeynta ugu dambeysay malinaya iyo waagi in loo codeeyo horta Soomaaliya federaal marabta oo shacabka Soomaaliya wadi bas marabto haday markay yiraahdaan waa rabnaa oo cod hadii la helo markaas ka gadaan waxa weeyaan markaas in la qeexo wax federaal noqon kara federaal mahal beela isku urursado isdoondoontay ma noqonayo waxaan noqonayaa dad isku gobol ah oo inta isku gobol ah noqonaysa waxa soo dhaqaaqay u baahan yahay marka waxa soo dhan dastuurka waxa weeyaan waa problem hadda haysta dastuurka wadanka haysta waa kamid oo kala caday marka si kastaba ha ahaatee shaki kuma jiro nidaam federaalka oo Soomaalida aqoonin inuu ma taqaana sabab u yahay conflict badan iyo dhibaatooyin badan oo dhacayo oo Soomaali fahansan xildhibaan Shariif waxa uu wasiirka dhawaajay sida maqlayso in ay sabab u tahay inay tahay mid kamid ah sababaha conflictyada ama dagaalada colaadaha soo celiya ama u keeni kara deegaano badan nidaamka federaalka haddii aan taas aragtidaas aan ka duulno sidee ugu fiican dadka Soomaalida ah shacabka ah aan ahayn maamulada ama aan ahayn dadka qaatay siyaasadda federaalka sidee looga dhaadhici karaa inay dad walaalo ah yihiin dad isku bulshada isku shacaba isku diin ay yihiin conflictyada ama colaadaha ka dhasha arrimaha siyaasadana ay ka fogaadaan sidee looga dhaadhici karaa waa su'aal wanaagsan inta aanan ayada u gudbin waxaan rabaa wax yar oo uga laabto federaalka caalamka horta waxaa jira federaal aad u fara badan mid ku noocuna ma jiro mid walba wuxuu ku salaysan yahay dalka qaatay dantiisa waxaana qaatay inta badan dad kala diimo ah ama kala midaba ayaa qaata annaga Soomaaliya haddaan nahay dad walaalo ah oo isku diina oo isku midaba nahay midka aan qaadanayna haddaanu ka maarmi weyno waxa ahayd inuu yahay mid ka yimid shacabka Soomaaliya sida uu wasiirku u sheegay ma ahan midkaan aanu qaadanay mid ka turjumaya dantayada iyo danta ummadda Soomaaliyeed waxaad moodaa in loo soo minguuriyay oo naloo keenay waxaan leeyahay xilli ay gaadhaba Soomaaliya federaal way ka laaban doontaa sida aan qiyaasahay waxaa dhici karta inay ama dheeraato ama dhawaato laakiin Soomaaliya inaan nidaamkaanu anficin marun bay fahmi doontaa haddaan taada u soo laabto su'aasha u soo laabto Soomaalidu waa dad mar wanaagsan shacab ahaan marna waxaas leedahay waa dad aan biri arkin oon ka fakarayn biri waxa dhacaya sababta aan leeyahay waxa weeye laba hogaamiye oo siyaasadeed yaa laba kelmadood oo erey intay sheegaan oo ayagu ay dan kale yihiin dan shakhsi ah ay kale yihiin ayaa waxa isku dhacaya shacabkii ummadda Soomaaliyeed siyaasiga ninka la yiraahdo waa ninka ummadiisa badbaadiya dhaqaale xumo ayadoo haysata ka badbaadiya nabadgelyo xumo ayadoo haysata ka badbaadiya laakiin siyaasiyiinta maanta Soomaaliya ka joogta hal erey oo fidna ah ayay dadka dhex dhigahayaan qolana waa u riyaaqaysaa qolana waa ka hor imaanaysaa
halkaasna waxaa ka abuurma colaad qabaa'il ama siyaasi ah oo aan lahayn meelay ku dhammaato iyo meelay ka bilaabto min bas waxaa ku dangaarahaya siyaasigii danta ka lahaa markaa shacabka waxaan leeyahay war inta dhimanaysaa iyo inta dhaawacmaysaa weli ma aragteen nin siyaasi oo carruurtiina dhimanaysa qabrigooda dul taagan ama idin siinahaya dhaqaalo ole cunugaasaa ka dhintay dhaqaalo ha la siiyo ama mid dhinto isbitaalka jira daaweynahaya war siyaasiyiinta dantooda ku gaaraysa geerida carruurtiina ka fakar oo ka tashada dad walaalaha tihiin ummad isku dhaqan iyo isku diin iyo isku hadda gaalkacya dadka degan qof wiil xagga u orday islaan xagga orday waxaa laga yaabaa inay isdhaleen ama ilmo abtiyo ilmo eeda yihiin ama ay walaala yihiin ama ganacsi isugu jiro oo midba dhinac u aaday waxay ku kala xayirmahayaanna waa aragti aan la garan karin meesha ay ku dhammaanayso ee meesha ka bilaabanayso waxaana wada dad siyaasiyiin oo dan kale shacabku waxaan leenahay wuxuu joogaa xilligii uu garan lahaa dantiisa xilligii uu u darayn lahaa siyaasiga ma joogo ha garteen dantiisa colaadahan soo laalaabtay ee ka socda magaalada gaalkacyo waxa ay sababeen ama waxa ay bulshada u karinayaan qaab qabiil oo in labadii shacab labada maamul ku kala hoos noolaa amaba dad ahaan u xigay ee maamulada kale ka tirsanaa ay u kala tacaatufaan labada maamul qaab qabiil oo laga cabsi qabo inay soo laabato tii 1991 arrinkaas maxaa ka dhihi lahayd xasan ya wasiirka waayo bismillah horta insha Allah Soomaaliya qabiil sidii 1991 ma filayna intuu wixii dhacay ma malaynayna dhacay horta abtaydkaas hadda mid u haysa dagaal colaad hadeer iyo koow colaad weyn oo noocaas oo kala ah aan horta ma rajaynayo laakiin dadka qabiil ahaan waxa uu saameynaysaa sababta uu saameynaysaa waxa ugu badan مثلا waxa weeye qabiilaadkii maamulada laftigoodii ayaa مثلا waxa laga yaabaa hal maamul inuu dad hal beel ay ama badan yihiin ama yihiin kii kalena hal beel ama badan yihiin ama ay mataqaanaa ay kamid yihiin marka mar haddii la diriro oo sawirka markii la bixinayo waxay noqonaysaa waxa dirirayo horta reebel waana waxa aad u liita ana aragtidayda ka qaba waxay tahay marka oo rabaa inaan meesha uga faa'iideysto hadda bacdi lama baahna Soomaaliya qabiil u dirto qabiilka waxa dagaalamayaan hadda kuwa miyiga hadda ka dagaalamaya oo ama miyiga ama ha ahaato ama hadda maamulada ha ahaatay waxa ka dhib badan kuwa mataqaanaa siyaasadda ku diriraya ama kuwa ka soo diyaasbarada waa runtii marka aragto alla yaabayso waxay soo qorayaan iyo waxyaalaha ku hadlayaan yaabayso waxaan halkaan aan uga faa'iideysanayaa dadka Soomaaliyeed horta waa isku mid qofka marka xataa jeclayn oo qof jecesha uusan ahayn qofkan in la noolaato danteeda ku jirta sababtoo ah inuu ku dilo ama aad disho macna ma laha sidaa daraadeed waxaan rabaa laba marka baaq meeshan ka jeediyo waan u jeediyo markuu dadka walaalaheen oo hadda ama maamulka Puntland aan u jeediyo iyo shacbigiisa taageero waxa weeye meeshan Soomaaliya uma baahna inaan dagaalano maanta anaga ku hadlayna hadda magaca galmudug waxaan diyaar naga ah wax kasta oo lagu heshiin karana sax ciidaartiina waxaan aragnaa heshiiska oo aan heshiisnaa in danaga danteena ku jirto marka waxa weeye waxa qabyaalada wada waxa ugu badan kuwa diyaasbarada oo meelaha xiriirka ka qaata ugu badan oo soo caytamayo oo soo hadlayo oo dadku dhiirigelinaya waa qodob weeye qodob la dama siyaasiyiin oo rabo dadka inay mideeyaan oo doonayo dagaalkaas inta dadku ku mideeyaan dadkii oo ka kala baahay ama maamulkooda ka soo horjeestay sida kaliya ay ku howlgeli karaan waxa weeye inay dagaal ridaan si leeyahay dadka la mideeyo dadkaas walaalayaana oo maamulka Puntland madaxda kana waxa ugu baaqaynaa war arrimahaas oo dhan la iska dhigo waxa weeye aan soo nimaadno aan wada hadalno waxa aan sabab isku dilnaa meesha ma taalo maxaa la isku dilayaa meel yar dhagax oo meel oo aan laga kala tagin dadkan oo kala tagin ay weliis intaas oo qarniyo wada joogay maadaama aan hubno in dadka wada joogi doono marka waxa fiican isay u noolaalahay inaan ka shaqeyno yaa fiican laakiin ma fiicna in muxuu ahaa inaan hadeertaan aan ku faano labaan dilnay iyo saddexaan dilnay iyo soo weerarnay iyo waa cararnay waxaas wax macna ma laha marka waxaan leeyahay labada baaqa number 1 anaga dhinaca ayaga waxaan ku dadaalaynaa nabadda ka shaqeeyo sidoo kale walaalaha waxaan u baaqaynaa in nabad qaataan dhowr arrimood ku qaata waxa weeye meeshaan muxuu ahaa dad inta qabsataan oo dad xoog magaalaha la qabsataan ma dhacayso ma dhici doonto sidoo kale idinka lama qabsan karo waxa weeye Soomaaliya annaga isku agdhacaynaa ilaa ay waqtiga la saacido hadeerna saacadda saan joogno wax la kala gaaray oo aan ahayn la burburay meeshan ma jirto marka waxaan leeyahay intaas oo sabab oo iyo dadkaas oo kala maarmin heshiis la qaato Cabdulle Ali Gaas waxaan ugu baaqaynaa oo meesha rajimkaas oo madaxda u yahay nabadda inay ka shaqeeyaan galmudug hadana waxaan garantiiraanaynaa
nabad ummadda Soomaalida u sheegayna inaan qaadanayno wax kasta oo Soomaali ku sheegay kartaan ka shaqeeyo marka ayagana saasaan rajaynaynaa diasporada iyo dadka taageerada waxaan leenahay fidnada dalkeena aqoon nooga burburay in laga qayb qaadan laakiin dadkeena sida aan dhisi lahayn oo u walaalay lahayn wax laga shaqeeyo su-aasha u dambeysa shariif waxaa jira hogaamiyaal kala hogaamiya maamuladan waxay ka qayb galaan shirarka lagu mideynayo ummadda Soomaaliyeed ama looga hadlayo ayaga marka idaacadaha furto waxaa arkaysaa shirka wada tashiga qaran iyo wax la mid ah waxaa ka mid ah maamuladaas ama hogaamiyaasha waxaa ka mid ah maamulada hadda ku diriraya gaalkacyo muqula tahay mas-uuliyiintii hal magaalo ummaddeeda midee weysay ama nabadee weysay in ummadda Soomaalida oo dhan ay ayadooda ka tali karto waa su-aal wanaagsan tii hore oo wasiirku ka jawaabay horta ummad islaam aan nahay islaamnimaduna in afka laga yiraahdo ma weeye in ficil ahaan loogu dhaqmay u baahan tahay dagaalada socda dadka le'anahaya ilaahay aayad quraan wuxuu ku leeyahay qof walba wixii uu ku dhintay qof walba wixii uu siduu u dhintay wuxuu ku dhintay waa lagu soo saaraya waana mana la iloobahayo ma dhacayso dadka u haysta intay dhaqaalaha bixiyaan dadka dhintay haddana waxay u haystaan inaysan qof dilin af bay ku taageerayaan waxay u haystaan inaysan qof dilin mid baa saf ballaaran xabad u ridahaya dad baa ku dhimanhaya wuxuu u haystaa inuusan qof dilin horta ilaahay qof walba qofkii dilay iyo qof walba sida uu dagaalka uga qayb qaatay aakhira wuu la imaanhayaa dadku taa waa inay ku xasuusnaadaan tan labaad xilliyada ka mida waa la heshiin laakiin ninkii wiilkiisu ka dhintay ama walaalkii ka dhintay maxaad heshiiska ku qaadan maxaad la imaan ninkii hantidiisu ka dhacantay wiilkiisii dhintay gabadhiisii dhimatay hooyadii ku dhimatay aakhirka waa la heshiin adoon walaal iyo wiil iyo hooyo haysan waxaan leenahay nabadda ogolaada haddeer intaas halkaas weeye waxaan qabaa nimanka mas-uuliyiinta ah oo maamulada kale hogaaminaya inaysan ba ayagu dirisanayn laakiin dadka ay xukumaan bay isku dilahayaan shirarka isla joogaan waad aragto waa la isku soo sawiraa kafeegay wada cabahayaan waxbay qaybsanahayaan oo maamulka iyo xildhibaanada ay qaybsanahayaan ayagu wax colaadu kama dhaxayso laakiin waxaa isku baaba'ayaa waa shacabka Soomaaliyeed oo la isku dirayo weliba sidaan hore u sheegay hal eray baa dadka isku baabi'inaya hal eray baa dadka wuxuu xasuusinayaa qabyaalad hal eray baa dadka oo dhan wuxuu u celinayaa 91kii waxaan leeyahay erayada noocaas hadda maalin la weyto nin mas-uula waxaa laga sheegay ninkii madayaha og oo la inuu macaan yahay erayadaasu waa erayo dadka kicinahaya weeye ma ahan erayo nabadeed qolada kalena sidaasoo kaleeto kuwa la mid ah waxay iyaguna yidhaahdeen ama dagaalkan markaan idaacadaha ka arkay waxaa wada dowladda dhexe iyada laftigeedu dadkay kicinaysaa waxaan leeyahay cid kasta ha wadee adinkaa mudan inaad inta isu timaadaan dadkiina aada nabad u horseydaan arrintaas haddii muddada soo socota sida ugu dhaqsiyaha badan aan labada madaxweyne gaalkacyo u tegin oo madaxweynaha dowladda dhexe uusan gaalkacyo u tegin oo musharaxiinta Soomaaliyeed oo dhan aysan u tegin oo aysan nabdayn dhibaatada meesha ka dhacaysa waxaan leenahay Soomaaliya cid ka naxaysa iyo cid mudan in la doortaa ma jirto madaxweyne mudan in la doortaa ma jiro hadduusan gaalkacyo nabad ka keenin xildhibaan in la doortaa mudan ma jiro hadduusan gaalkacyo nabad ka keenin labada madaxweynena waxaan u arkaynaa haddaysan si dhab ah gaalkacyo isugu imaan shacabkoodana u walaalayn inay dagaalka raalli ka yihiin waa tahay guud ahaan intaas ayaan kusoo afmeeraynaa barnaamijkii gaarka ahaa ee aan diiradda ku saaraynay colaadaha ka soo laalaabta gobolka mudug gaar ahaan magaalada gaalkacyo barnaamijka waxaa idiin soo saaray warbaahinta dhexdhexaad waxaan xiriiriye ka ahaa anigoo Umar Xasan Dhowra ah aniga iyo martida igala qayb gashay barnaamijka waxaan idinkaga tegaynaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh